asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada channelka xasan xidig muuqaalkan waxaan idinku barayaa sida loo sameeyo countdown ama waqti tirin sida kilibkan idiin muuqda oo kale. marka muuqaal sidan oo kale ah qaabkee loo suubiyaa adigoo isticmaalaya Adobe Premiere. waxaan isticmaali doonaa Adobe Premiere Pro 2024 marka hore waxaan kusoo darsanaynaa video bar wax loo yaqaano ama video madow effective video madow aan kusoo darsanaynaa. waxaan taabanaynaa calaamadan new item kadibna waxaan taaban doonaa meesha ay ku qoran tahay black video kadibna waxaan leenahay okay soo jiid muuqaalka meesha noo yaalo korkiisa aan saaraynaa. marka muuqaalka korkiisa markii aan saarno waxaan dooranaynaa isaga kadibna waxaan tagi doonaa saddexdan labadan falaar waxaan ka soo furaynaa ama soo gashan doonaa effects kadibna waxaan raadinaynaa effect loo yaqaano time code waa kana waa soo jiidaysaa kadibna waxaa kusoo daynaysaa video barka ama black videogan meeshaan waxaa ka arki doontaa daqiiqado isagoo kaaga soo bilaabayo 1 saac. marka waxaan sameynaa marka anaga mid anaga noo qaasaan suubsanaynaa mar rabna 1 saac inuu nooga soo bilaabo. waxaad tegaysaa meeshaan calaamadda tigta ka qaadaysaa kadibna waxaa soo furaysaa meeshaan waxaa soo furaysaa time code marka aad soo furto waxaad dooran doontaa generate. sida hadda kuu muuqato wuxuu nooga soo bilaabayaa 0 calaamadana inta noo joogto bilowga haddii aan geyno eber ka soo bilaabi doonaa. sidee marka muuqaalka aan uga soo muujin doonaa kan waxyar waxaan sameynaynaa size-kiisa waxyar soo weyneynayna okay korna waa u qaadi karnaa positionka meelahan oo kale aan geynaynaa. videogan marka madowga aan ka saarno sidee looga saaraa waxaad tegaysaa qaybtan meesha ay ku qoran tahay blending mode kadibna hadda waa normal waa soo furaysaa waxaa ka dhigaysaa screen markii aan ka dhigno waxaa noo muuqan doono videoga ayaa noo muuqan doono. hadda blend dhahna hadda waa arkaysaa 1 2 3 okay waxaan rabnaa marka qaybtan hore inaan iska jarno oo aan yareyno see u jari karnaa waxaa soo qaadanaysaa effect loo yaqaano crop markii aad soo qaado waxaan kusoo dayi doonaa black videoga kadibna waxaan dooranayaa effectiga crop effectiga ayaan dooranayaa. calaamadahan markay ii soo muuqdaan qaybtaan aan iska jarayaa. labadan dambe haddii aad doonto waa iska jari kartaa oo ilbiriqsiyada xisaabayo haddii kale sidiisa aan ku dhaafaynaa. okay intaa markii aan sameyno waxaan rabnaa marka reverse inaan ka dhigno. mararka qaarkiis waxaa aragtaa inuu kasoo bilaabayo tusaale ahaan 4 oo kale uu kasoo bilaabayo kadibna hoos u soo wadaya ama 3 uu kasoo bilaabaya ama 5 uu kasoo bilaaba countdown alla hoos loo soo wadaa tirada meesha anaga aan ka bilaawno inta badan 1 2 3 waxaa la sameeyaa oo kale 3 2 1 kadibna in la bilaabo. qaabkee saas uga dhigi kartaa marka kan marka hadda asigoo sidaan ah reversiga ma noo shaqeynayo oo haddii aan tagno meesha ay ku qoran tahay speed waxaa arkaysaa inuusan shaqeynaynin. saa darteed waxaan ka dhiganaynaa next ayaan ka dhiganaynaa. markaa next ka dhigto waxaa kusoo laabtay black videoga kusoo laabtay. mar labaad waxaa tegaysaa blending mode-ka kadibna waxaa dooranaysaa screen sidoo kale right click aad leedahay waxaa tegi doontaa speed kadibna waxaa leedahay reverse okay. bilowga markii aan tagno marka wuxuu kasoo bilaabi doonaa 4 second oo kasoo bilaabi doonaa. okay waxyar iska soo yareynaynaa dhinacan intuu siki hadda fiiri marka 4 second iyo 20 oo kasoo bilaabi marka hoos u soo laabana jida 3 2 1 go. okay sidaas loo suubiyaa. waxaa kale oo jiro ayadoo la isticmaalayo nambara hal number ah qaab manual ahaan aan u sameynaynaa. kan waxaan isticmaalnaa effect time code ah laakiin markaan waxaan isticmaali doonaa inaan anaga abuurno time code ama waqti tirin oo muxuu ahaa ii sheeg oo anaga aan sameynayno.
sidee loo soo bi karaa kow waxaa sameynaysaa soo gasho textiga caadiga qoro waxaan ka bilaabaynaa 0 inta leenahay 1 2 3 4 5 okay kadib waxaan sameyn doonaa inaan kor u qaadno okay inaan meesha dhex bartanka aan ku aadino ayaan sameyn doonaa okay motion kan kor u qaad okay cafwan okay vectorka ayaan isticmaalaynaa kadibna kor aan usoo qaadaynaa kor markaan usoo qaadno qoraalkan waxaan rabnaa dhex bartanka inaan ku aadisano waxaan tegaynaa meesha ay ku qoran tahay window kadibna waxaan soo furo doonaa essential graphics waxaan leenahay centerka noogu aadi kana centerka noogu aadi horizontal iyo vertical ahaanba dhex bartanka noogu aadi intaa markii aan sameyno waxaan sameyn doonaa oo kale inaan kusoo darsano transform effect ayaan kusoo darsan doonaa horta kan waxaa noo geysaa bilowga hore noo geey okay transform effect ayaan kusoo darsan doonaa haddii kan meesha aysan kaaga muuqanin waxaa tagtaa inta kadibna effects dooro kadibna waxaa ku qortaa meeshan transform markii aad qortid waa kana soo jiid kusoo daa mar walba waxaa iska hubisaa textiga inuu u hooseeyo transformkana oo textiga korkiisa saaran yahay intaa markii aan sameyno waxaan sameyn doonaa oo kale crop effect waxa la yiraahdo ayaan kusoo darsan doonaa crop effect markii aan kusoo darno isagana waa inuu kasii koreeyaa transformka okay marka hore 5 kana waxaan kusoo aadinaynaa qaybtan dhexe kor aan usoo qaadayaa adigoo isticmaalaya qaybtan transformka positionka ayaa kor usoo qaadaysaa okay meeshaas oo kale noo keen intaa markii aad keento waxaan rabnaa markaa 5 inay ka bilaabato oo qoraalkaas kale aan la arkin waxaan ku laabanaynaa crop effectigi waa kana crop effectigi qaybtan hoose noo yaalaa afwan qaybta kore ayuu noo yaalaa transformka ayuu ka sareeyaa marka calaamadan soo qabo kor waxaa keentaa inta waxaa soo muuqanaya kaliya number 5 okay marka hadda animation aan abuureynaa oo qoraalkaas inuu isbedelo noo suurtagelinaya sidee u abuuri karnaa animationka waxyar aan shaashada inta usoo sikasado meeshaan si secondska aan uga arko waxaan weyneysanayaa timelineka okay hadda waa kana 1 second waan ujeedaa 2 second 3 second intaa markii aan sameeyo falaarta meesha ugu horeysa iyadoo ii joogto ayaan waxaan tegayaa transformka waa meeshaan meesha laga sameynayo animationka positionka waxaa siinaysaa calaamadaas oo saacadda click siine waxaa ku abuurmi doona wax la yiraahdo keyframe waa kana meesha kaaga muuqdo keyframeka markii aad abuurto waxaa sameynaysaa 1 second hore usoo dhaqaaq marka inta kaliya ka fiirinay meeshaan ka arki kartaa 1 second meeshaas ka fiiri 1 second oo justa markii aad timaado waxaa siisaa waxaa ku dartaa keyframekan aan ku darnay wuxuu noo suurtagelinayaa ilaa iyo 1 second inuu taagnaado number 5 haddii aadan keyframekaas siinin oo isla markii aad muxuu ahaay kan dhaqaajiso number 4 aad keento waxaa isbedeli doono tartiiba u socon doonaa macnaha number 5 meeshuu ka baxayaa waxyar marka waxaa sameynaya 1 2 3 amala second 3 frame oo kale kadib waxaa sameynaysaa marka animationka hadda keyframe kale ay abuurmi doono keyframekaas kale ay abuurmaayo wuxuu u dhaxayn doonaa calaamadan aan keyframekan iyo keyframeka inta u dhaxayso ayuu isbedelka ka dhici doonaa intaana waxaa taagnaan doona number 5 ayaa taagnaan doona okay waxaan sameynaa marka positionkii hoos u soo bixi number 5 meesha uu ka baxay waxaa ii soo baxay number 4 haddana waxaan sameynayaa muddo 2 second meesha geyn doona 1 second kala dhaqaajina 2 second markaan tago ilaa intaas afarta inay ii taagnaataa raasas darteed waa inaan sameeyaa haddana keyframe kale aan ku daraa
wax yar aan dhaqaajinaa haddana 1 2 3 second oo 3 frame oo kale second ma dhamo ayaa haddana waxaan sameynayaa hoos aan soo bixinaa waxaa soo muuqan doona haddana number 3 sidaas aan ku wadaayaa 3 second markii aan tagno keyframe-kii ayaa haddana u sameynaynaa si oo noogu celiyo ilaa iyo 3 second inay taagnaato calaamadaas ama numberkaas number 3 inuu noo muuqdo inta markii aan sameeyo wax yar 3 frame oo kale haddana dhaqaaqayaa kadibna number 2 ayaan soo bixinaa number 2 markii aan soo bixiyo wax yar inta aan sigsado waxaa iga qarsan number 2 markii aan soo bixiyo waxaan sameynayaa haddana waa dhaqaajinaa waxaan tegi doonaa frameka afraad markii aan tago waxaan siinayaa haddana frame kadibna wax yaraan dhaqaaqayaa kadibna number 1 ayaan soo saaraa number 1 markii aan soo saaro wax yaraan dhaqaaqi doonaa okay igu samee haddana keyframe maadaama meeshaas markii la maraayo inuu baxa aan rabo keyframe kala u sameynaa waan iska jarayaa qaybtaas maadaama number 1 markii meeshaas la imaado hore inay ka dhaqaaqaan aan rabo number 1 kin meesha oo ka baxo haddii aad doontana waa sii wadi kartaa number xoogaa videoga meesha ka bilaabanaya iyo kan ayaa kala duwan waa basareysan kartaa waxaan sameyn karnaa sida caadiga ah number waxaan geynaynaa 0 ayaan geynaynaa okay meeshaas markii aan joognay kan noo soo celi meeshaas markii aan joognay wax yar noogu dar inta isla markiina ha noo soo baxo 0 oo meesha aan ka bedelayna okay that's all inta markaa sameyso marka si wixii ay u noqdaan wax qurux badan waxaan ku soo darsanaynaa cod wax ku tirinaya ku soo darsanay ama waxa ku soo darsanaysaa sound effect yaan oo kale ku soo darsanaysaa marka aan ku celiyo qaabka uu ekaanayo waa tahay halkaas aan ku gabagabeynaynaa qaybtan fadlan waxaan idin ka codsanayaa channelka qofka cusub inuu subscribe noo saaro asxaabtiisana uu la wadaago qofkii danaynayo sidoo kaleeta videoga haddii aad ka heshay like noo saar si dad badan uu gaaro aad u mahadsantihiin inta aan ku kulmi doono barnaamijka xigo waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.